munaasabad lagu qabtay xirada ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Danab Beledoogle gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay ka qayb galeen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuto Odawaye Yuusuf Raage iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa cutubyo ka tirsan ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Danab loogu soo xiray tababar muddo ay halkaasi ku qaadanayeen kaasi oo ay bixinayeen macallimiin ka tirsan kumaandooska Danab ana tababarkaasi gacan ka geysanayay dawladda Mareykanka ugu horeyn taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawaye Yuusuf Raage ayaa waxa uu halkaasi salaan sharaf kaga qaatay cutub ka tirsan kumaandooska Danab intii munaasabada ay socotay ciidanka kumaandooska ayaa waxay soo bandhigeen dhoolatus heerkiisu sareeyo kaasi oo ay ka mid ahayeen habka cadowga loo bartilmaameedsado difaacu nafsiga iyo sidoo kale waxay halkaasi ku soo bandhigeen dabrid ay ka muuqatay xirfad iyo tababar aad u sareeya madaxdii ciidanka xoogga dalka ugu horeeyo taliye Odawaye ayaa u riyaaqay dhoolatuskii ay soo bandhigeen ciidanka kumaandooska xoogga dalka madaxa hoggaanka tababarada iyo wacyigelinta xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Axmed Ciise Axmed ayaa munaasabadaasi ka hadlay waxaana uu ku dheeraaday sharaxaad uu ka bixinayay tababarka iyo nuuciisa ciidanka Danab waa ciidan loogu talagalay in aqoonta gaarka ah ee la siinayo tababarka adag ee la siinayo adayga loogu talagalay in lagu carbiyo in ay ku garab istaagaan kuna badbaadiyaan ummadooda isla markaana ku caawiyaan ciidamadooda kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuto Odawaye Yuusuf Raage oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ciidankan kumaandooska ay ka qayb qaadan doonaan howlgallada ummadda Soomaaliyeed looga dulqaadayo dhibaatada argagixisada Al-Shabaab tababarka maantay aad halkaan noogu soo bandhigteen oo qaybo kala gedisan isugu jiray oo runtii la dhihi karo waqtiga aad halkaan tababarka aad ku qaadateen iyo muxuu ahaa sheegay waxa aad soo bandhigteenu xaqiiqatanka waa wax aad u kala duwan waa wax aad u kala fog waa wax runtii aad iyo aad noo farxad galiyay guud ahaan macallimiintii iyo saraakiishii saraakiil xigeenkii alifleydii iyo dableydii ka qayb qaatay inay caynka idin tababaraan waqtiga inta la eegna runtii aan si weyn ugu mahad celinayno oo qalbiga xaqiiqatanka waxaan hortaala hawl badan waxaan sugayaa ummadda Soomaaliyeed oo aad ogtihiin marxaladaha ay soo martay dhammaan meel kastoo ay joogaan waxay ku rijaweeyeen meelaha wali cadawgu gacanta ku haayo ee aad ogtihiin dhibaatada uu ku haayo ee aad ogtihiin marxaladda ay ku nool yihiin ee aad ogtihiin cariiriga iyo gumaadka ay ku jiraan in aad u timaadaan gacmihiinana uga dulqaadaan adinkoo kaashanaya Allah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa guud ahaan dalka intiisa badan ka wada howlgallo lagu baaxsanayo haraadiga maleeshiyaadka Al-Shabaab ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee Danab ayaa howlgalladaasi kaalin weyn ka qaata iyaga oo horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argixisada ugu daata godadka iyo keemaha ay ku dhuumanayaan Maxamed Muuse Maxamed warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed xirada kumaandooska xoogga dalka Danab Beledoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose.